Filimka ayaa ku bilaabmaya magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo John Fontanelli oo baaskiilkiisa ku shaqaysanaya oo alaab u geynaya macaamiisha wax soo dalbatay si uu nolol maalmeedkiisa u maareeyo. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo shaqada jooga ayaa waxaa loo dhiibay warqad si uu u geeyo meel aan la garanaynin. Laakiin John ayaa diiday oo sheegay in la dhaafay saacadihii shaqada oo uuna guriga aadayo. Dabadeed nin oday ah ayaa albaabkii gurigiisa soo garaacay. Wuxuu odaygan John u sheegay inay u taalo dhaxal uusan ka warqabin. Waxa uu siiyey €2,000 isagoo ka dalbaday inay candhuuftiisa qaadaan si loo baaro DNA-giisa. wuxuu kale ka codsaday inuusan shaqada aadin ilaa dhaxalkiisa looga soo dhicinayo. Markii hore John wuxuu moodayay inuu odayga ku ciyaarayo maadaama uu ahaa agoon aan lahayn qoys iyo qaraabo uu wax ka dhaxlo. Si kastaba haatee sidii odaygu rabay ayuu sameeyey. Saqdii dhexe asxaabtiisa ayaa ugu hambaleeyay dhalashadiisii 25aad. Walaalkiisa Kevin ee Lino ayay halkaas ku arkeen. Subaxdii xigtay John waxaa soo wacay odaygii kaasoo u sheegay inuu si degdeg ah alaabtiisa u soo xirto. Wuu ku wareeray warkan laakiin waa iska aqbalay. Daqiiqado kadib odaygii ayaa albaabka yimid oo John ku booriyay inuu soo raaco. Marvin oo ahaa John saaxiibkiisa ayaa walaacsanaa oo wuxuu John u sheegay in laga yaabo in la afduubto ama la dilo. Si kastaba haatee John ayaa u sheegay inuusan walwalin maadaama uusan haysan wax uu khasaarayo. Wax yar kadib waxaa lagu soo qaaday diyaarad qaas ah oo magaalada Florence ayaa laga soo dejiyey isagoo ay galbinayaan security fara badan. Florence waxaa ku soo dhaweeyay Signore Facchi iyo inanta uu awoog u yahay ee Frank Facchi kuwaasoo lahaa qasriga ugu weyn magaaladan. Qoyska Signore Facchi waxay boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay magaaladan ay ka ahayn qareene iyo hanti dhowrayaal. John wuxuu qoyskan u sheegay inay kusoo khaldameen oo uuna ahayn qofka ay iyagu raadinayeen. Si kastaba haatee Signore Facchi ayaa John u sharaxay inuu ka mid yahay dhashii Giacomo Fontanelli kaasoo ahaa nin awood badan oo 500 oo sannadood ka hor noolaa. Fontanelli wuxuu ka dardaarmay in hantidiisa oo dhammi la siiyo wiil farciis ka mid ah kaasoo 25 jir ah oona imaan doona 500 oo sannadood kadib. John haddii uu dhaxalkan helo wuxuu noqon karaa qofka ugu qanisan adduunka. Si kastaba haatee hantidan waxaa la socda xeerar iyo howlo gaar ah oo ay tahay inuu John qabto. John wuxuu kaloo ogaaday inay jiraan laba wiil oo isaga isku farac yihiin kuwaasoo loogu kala magacaabayay Kenji Takashi iyo Luke Fontanelli. Ugu dambeyn John waa u qablay dhaxalkan oo shuruudihii ayuu saxiixay. Maanta xigtay waxaa loo waday xafiis halkaas oo ku soo qaatay dhalashada Talyaaniga. Dabadeed Frank adeerkeeda Gregorio Facchi ayaa soo booqday intii wacshadiisa diyaarsanayay. Gregorio wuxuu ka sheekeynayay ganacsiga qoyskiisa iyo saamaynta ay dunida ku leeyihiin. Si kastaba haatee isagu gabi ahaanba uu ka fikri doonaa qoyskiisa sababta wuxuu aaminsanaa in lacagtu ay tahay baahida ugu weyn ee qofka xalin kartaa. Subaxdii xigtay wuxuu dalxiis ahaan John ugu kaxeeyay buurta dhinaceeda. Inta loogu jiro waqtigan Michaela oo ahayd haweeney security ka tirsan ayaa si gaar ah John ugu dhawaatay. waxay u sheegtay in reer Facchi ay ka qarinayaan qof ay qaab shil ahaan ah u dileen. waxayna isaga ka dalbatay inay maalinta xigta halkan isugu imaadaan si ay wax walba ugu sheegto. isla markii waxay ku soo noqdeen qasrigii iyadoo John uu weli qalbiga ku hayo warkii loo sheegay. aroortii geesigana ayaa baaskiil ku soo dhuuntay oo soo gaaray goobtii. wuxuu meesha ka helay adhikaarka qof la yidhaahdo Lorenzo Fontanelli. isla markiiba Michaela ayaa goobta timid. waxay sheegtay inay tahay walaasha Lorenzo Fontanelli kaasoo ahaa qofkii ugu dambeeyey ee la rabay inuu dhaxlo hantidan faraha badan. waxay daha ka qaaday inay nafteedu badbaadsatay kadib markii ay aqoonsigeeda bedelatay laakiin nasiib daro waa ay badbaadin kari weyday walaalkeeda. waxay aaminsan tahay waxaan oo dhan ay ka dambeeyaan reer Facchi si ay u helaan dhaxalkii Fontanelli. John ayaa la yaabay maqalka warkan oo wuxuu go'aansaday inuu xaqiiqada baaro. kadib Michaela ayaa ninkan ka codsatay inuu u sheego magacyada dad kale ee isku farac yihiin. John wuxuu kaliya dadkaas ka xustaa Kenji Takashi oo Jabaan ka soo jeeday kaas oo uu 3 maalmood ka weynaa. markaas lama filaan ah Michaela ayaa ninkan gadaal ka soo weerartay wax ku durtay. John si dhaqsaha ayuu u miir daboolmay halka Michaelana ay telefoon kula hadlaysay qof ay u xaqiijinaysay in bartilmaameedkeedu ay dhulka dhigeen. waxay kale qofkaas u sheegtay warkii ku saabsanaa Kenji Takashi. waxaa soo baxday in Michaela ay ka been sheegtay aqoonsigeeda oo waxay dhab ahaantii u shaqaynaysay koox leenaysay farac Fontanelli si ay dhaxalka u helaan. John wuxuu markii dambe ka soo toosay guri burbursan oo Michaela kooxdeeda ku sugnaayeen. isagoo kursiga ku xiran nin ayaa wejigii iyo jirkiisaba iskan gareynayay. waxaa soo baxday inay isku dayeen inay sameeyaan muuqaal been abuur ah iyagoo John ka dhigaya inuu isdilay isagoo wadada tareenka isku dhayaya. intii ay muuqaalkan soo dhigayeen Michaela ayaa wejiga Jabaan uga dabooshay oo qalka soo baxday. waa uu ooyay oo wuxuu ka baryay inaysan ka tagin. isla waqtigaas xabado ayuu maqlay oo qof ayaa wejiga ka furay. wuxuu arkay meedkii Michaela oo hortiisa yaala. waxaa soo baxday in askartan ay sugayeen ammaankiisa oo iyagoo GPS adeegsanaya ay John soo raadiyeen waana ay dileen bada cadowgii. waxyar kadib si nabad ah ay qasriga ugu soo celiyeen. John wuxuu ka xanaaqay in Signore Facchi uu shaqaalaysiiyo haweeney cadow ku ah oo wuxuu kale odaygu ku eedeeyay inuusan u sheegin shilkii uu Lorenzo ku dhintay. Signore Facchi ayaa John gees ula baxay oo wuxuu sheegay inuu rabay inay afduubkan ku ogaadaan cid khatarta ku ah. haatan maadaama ay cadowgooda ogaadeen John ayaa Signore ka dalbaday inay fasaxaan oona $10 milyan u siiyo oona dhaxal ka rabin. wuxuu arrintan ku sameeyay in lacagtaas balaayiinta dollar ay uga fiican tahay 10 milyan marba haddii ay naftiisa u badbaadayso. Sastawaata Franka ayaa markii dambe John kula talisay inuusan cabsan oo uu riskigan qaato. markaas kadib John ayaa noqday milkiilaha dhammaan hantidii Giacomo Fontanelli oo isaga ay ku xiran tahay sida uu u isticmaali doono. si loo saacido kooxda taliyaal ah ayaa loo xilsaaray inay ka caawiyaan siduu hantidiisa u maamulayo. dhan kale Signore Facchi wuxuu dhabaantii hantida la rabay qof kale isagoo aaminsanaa in John uu ku takrifali karo. wuxuu la rabay Kenji Takashi kaasoo ka qalan jibiyay jaamacadda Ivy League oona aqoon u lahaa sida ay lacagta u shaqayso.
muuqaalka waxaa markaas naloo wareejinayaa Baariis oo waxaynu aragnaa Luke oo alaab loo dhigay sanduuqii boostadiisa. Luke wuxuu ka mid ahaa dhashii ka farcamtay Giacomo Fontanelli iyo dhaxal sugaha xiga kadib John iyo Takashi. baabuurka dhexdiisa nin ayaa siiyey baasaboor iyo tigidh uu ku tagayo Manila. waxay ku wargeliyeen in qof lagu magacaabo Zia ay ku amartay inuu si degdeg ah ugu duulo Philippine. kadib markuu Zia magaceeda maqlay, Luke ayaa aqbalay inuu sidaas sameeyo oo baabuurka ayuu ka soo degay. isla waqtiga John ayaa ku soo laabtay Berlin oo wuxuu la kulmay walaalkiisa Lino iyo xaaskiisa ay aad ula yaabnaa hantidan cusub ee uu John helay. habeenkaas wuxuu aaday baarka halkaas oo si aan ka fiirsan lahayn lacago badan ugu baashaalay. si kastaba hatee subaxii xigtay waxaa wararka oo dhan qabsaday wiilkii baaskiil ku shaqayn jiray ee dhaxlay $1 trilyan. wargeysyadu waxay la yaabnayeen sida daran ee uu John lacagta ugu tumanayay. sidaas darteed reer Faki ayaa lagu qasbay inay warbaahinta la hadlaan, halkaasoo lagu su'aalayay sida uu John lacagta ugu baashaalayay. warbaahintu waxay aad u danaynaysay in trilyanskaas doolar la sadaqayn doono iyo in kale, maadaama ay awoowayaashii sidaas rabeen. laakiin qoyskan ayaa arrintan waxay ugu jawaabeen waayeen. dhan kale John wuxuu go'aansan inuu Florence ku laabto. meel kale oo garoonka diyaaradaha ka mid ah, Luke ayaa arkay war ku saabsan in John uu la wareegay dhaxalkii Fontanelli. aad ayuu warkan uga carooday. waxaa soo baxday in Luke ay dabada ka riixayeen rag rabay inay hantidan si fudud ku helaan. John madax adeegiisa ayaa u keenay dhammaan dadku ay ogaadeen inuu la wareegay lacagtii trilyanska dollar. sidaas darteed hadda dad badan ayaa raba inay isagu dilaan. Luke wuxuu sheegay falaadkiisii oo wuxuu ku laabtay guriga Zia si uu u weydiiyey wax dhacay. waxayadu ballan qaaday inay ka caawin karto inuu dhaxalkan helo. si kastaba hatee Zia ma aysan u jawaabin, oo isagoo niyad jabsan ayaa Luke u arkay isla gaarigii shalay soo qaaday oo gudaha ayuu galay. labadii nin midkood ayaa u dhiibay taleefan oo Zia la hadal siiyey. Luke wuxuu haweeneydan weydiiyey sababta John loo siiyey hantidii. Zia waxay u sheegtay inuu isdejiyo oo uu in muddo ah magaalada ka dhunto. Luke wuxuu raacay amarkeedii, laakiin labadii nin ayuu ceeji ku dilay kahor intuusan baxsan. dhan kale John wuxuu la fadhiyaa kulan uu la yeelanayo golo khubaro ah, halkaas oo ay ka wada hadlayeen sida loo xalin karo shaqla'aanta iyo saboolnimada adduunka ka taagan. intii ay khubaradan doodayeen, John ayaa meeshaas ka fadhiyey. kulankan kadib Gregoria ayaa John u waday dhanka xeebta si ay u soo baashaalaan. isagoo faraxsan, John ayaa xitaa ka tagay waraaqihii muhiimka oo dhulka ay iska daadsanaayeen. Signora Faki wuxuu dib ugu wacay inantiisa, wuxuuna ka codsanay inay mar walba taageerto John. si kastaba hatee markuu arkay waraaqihii muhiimka ee dhulka ku daadsanaa ayaa uu ka niyad jabay. waayeelkan oo caafimaadkiisu aad u liitay ayaa waraaqihii soo qaaday oo wuxuu damcay inuu sanduuqa geliyo. laakiin si lanflaan ah wadna xanuun ayaa ku soo kacay oo dhulka ayuu ku dhacay. intii waxaasoo dhan dhacayeen, John iyo Gregoria ayaa iskaga mashquulsanaa xafladdii xeebta ka dhacaysay. 4 maalmood kadib, John wuxuu helay boosto uu soo diray qof aan la garanayn. boostadan waxaa ku jirtay buug ay qortay Franca Faki. galabtaas wuxuu ka soo qaybgalay aaska Signora Faki oo wuxuu isku dayay inuu Franca la hadlo. wuxuu bandhigay qorshe uu waday oo iyaduna waa ay ogolaatay inay ka caawiso qorshahan. John ayaa si degdeg ah u iibsaday warshad koronto la nacay oo wuxuu halkaas ka dhigtay xaruntiisa. Franca waxay qortay boqolaal shaqaale oo ay ka mid ahayn asxaabta John si ay dadka tabaalaysan u caawiyaan. dadkan la shaqaalaysiiyey waxaa ka mid ahaa Malcolm McCann oo ka mid ah rag ugu wanaagsan maarayaasha sanduuqa lacagta adduunka. Franca ayaa John u sharaxday in Malcolm uu yahay qofka ugu muhiimsan tiimkooda si ay ula tartamaan shirkadaha kale. waxaa markaas nala tusay Luke oo yimid meel saxaro ah oo Algeria ka mid ah. aynu dib ugu noqonno xaruntii. John iyo Franca ayaa si rasmi ah kulankoodii ugu horreeyay la yeeshay khibrada. Malcolm oo fadhigan hogaaminaya ayaa sharaxay sida ay suuqyada maaliyadeed u shaqeeyaan. muuqaal qaybtiisa xigta, John wuxuu ka qaybqaatay wareysiyo iyo shirar badan isagoo khudbadiisa ku soo jiidanaya dareenka bulshada. waxay isaga iyo tiimkiisu si guul ah ula wareegeen saamigii ugu badnaa ee shirkadda ugu weyn Jarmalka ee Oppenheim Electric. intii ay dabaaldegeen oo ayna dunidu la dhacsaneed samfalkii uu John waday ayaa Luke uu arrintan aad uga carooday. waxaa naloo sheegay in Luke uu noloshiisa oo dhan ku qaatay agoon bilaa hadaf ah ilaa uu markii dambe kala kulmay Zia, taasoo aad u xanaanaysay. si kastaba tahmiinkiisu waa uu fashilmay markii John loo doortay inuu noqdo qofka dhaxlaya hantidii Fontanelli. isagoo aad u qaraarsan, Luke ayaa kasoo tagay Algeria oo wuxuu u safray Berlin isagoo damacsanaa inuu John dilo. dhan kale John iyo kooxdiisa waxay ku mashquulsanayeen dabaaldega guushii ay dhammaan gaareen. Lino oo walaalkiisa John xanaaneynaya tan iyo markii ay waalidkooda dhinteen ayaa isagoo walacsan John u tagay. wuxuu u baqayay badbaadada xaaskiisa iyo lintiisa kadib markii uu John noqday shakhsi saameyn leh. Lino wuxuu sheegay in muddooyinkanba uu qof daba taagnaa. intaa waxaa dheer oo xitaa darisiisu ka dalbaday inuu ka guuro si uusan dhibaato ugu keenin. waqtigaas si lanflaan ah, Luke oo qori wata ayaa soo muuqday oo wuxuu sheegay inuusan John ku habboonayn inuu dhaxlo hantidii Fontanelli. ilaaladii John ayaa si degdeg ah ninkan u celiyey oo ku amray inuu gaarigiisa galo. isla markiiba israasaaseen ayaa ka dhex qarxaday labadan dhinac. nasiib daro, intii uu Lino isku dayay inuu walaalkiisa badbaadiyo, caloosha ayaa xabad uga dhacday. muuqaalka qaybtiisa ugu dambeeya ayaa ku soo xirmaya John oo murugaysan oona dhabta ku haya meydka walaalkiisa.